السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وإذا السلام سلام كديب الحمد لله توانكي ودن بيسير رمضان كهبينكي صدح لواتنات بانكو جرنا إلى هنقا أقبله كوي نارت لغا حورين إلى هنقو درو عشر بدن واربيدنا إدنو وداقو لكن إيما صورة الجنم حدنا عشرير أيان شعال هذي أو إنت بدن على لغا هالين إنا إدن لو وداقو تاسوء أخلاقيات كمركا مساجد كلا جوغو أخلاقيات مركا ليها وحيالا بدن أيان تابن دونا waana aad bayna muhiim u tahay in la isla fiiriyo gabadh kastana nafteeda ay dib ugu noqoto waayahay masaajidka markaan soo aadeyno maxaan soo raadsanay qof kasta su'aashaas ay weydiiyo maxaan hurdada inta uga kacay ama masaajidka u soo aaday dabcan u dhawaashaha ilaahay iyo wixii aad rabteen ilaahay soo weydiisato oo ajir badan aad hesho soo markaa meeshii ajrigan ka heli lahayn waxyaalo karaahiyada haddaan sameyno oo ajrigiiba haddaan helin bal haddii aan dambi ka soo faa'iidana ka waran marka maxaa keeni kara waaye dambigaas oo ajrigeena masqaamin kara kow horta al-nadaafatu min al-iimaan ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam nadaafada waa qayb iimaankaaga kamida soo marka waad soo toostay waxaad ku soo aaday masaajidkii dharkii aad ku jiiftay ama waxaad soo xidhatay mara salaadkii guriga aad ku tukanaysay kaliyaata aad xijaab korka ma wadatid ama dirac baati xijaab baad soo qaadatay mara salaadka uu dheer yahay dhulkaad ku soo jiidaysaa inta soo socotid oo dhan dariici dhulkaad ku soo jiidaysaa adiga sigisaan ma xidhnid busti baad ka soo dharagtay dharkii busti bay ka soo dhargeen masaajidka la soo galisaa masaajidkana waa meeluhu ilaahay ugu jecel yahay qof bani aadana in lagu dhibaateeyo bustaas iyo shiirkaas iyo qashinkaas dhulka lagu soo xaaqayna ma wanaagsana soo markaad masaajidka ilaahay soo aadaysid dhar asturan oo dhulkiina aan jidinin umadiina aan dhibaateeninin kow taas waa midda koowaad midda labaad inaad soo cadayanin adoon soo cadayanin intaad timaado qofkan ku ag fadhiyeed ku ag hamsato afkaaga aad kala qaadqaado huurkaaga iyo shiirkaaga oo dhan intuu ka afkaaga ka soo baxo qofkan agtaada fadhiyo ku tukanayo iska tasbiixsanaya wixii calooshiisa ku jira inay soo dhaaftaaba halis u yahayba qurmuunkaas afka ka soo baxaya taasna rasuulka alayhi salaatu wasalaam aad buu uga dardaarmay cadayga markaad hadaad hurdo ka soo toostay masaajidka ilaahayna oo soo socota dad gurigaaga iskaga tukanaysid huradaadii waxaad aday ku taalaa kaliya gurigaaga ku tahay laakiin ummad baad dhex imanaysaa ajir waa soo raadsanaysaa soo markaa la diro wala diraaro dadka kale ha dhibaateynin naftaadana karaayaha u soo jeedin marka rag iyo dumar way qusaysaa tan kale markii masaajidka la imaado qeyla waqaala sheeko telefoon dhinacaas kankii kale xitaa qofkii markaa quraan akhrisanayay ama tasbiixsanayay ina maxaan ku dhahaa laga qasqaso masaajidku wuxuu u baahan yahay silent qofka inuu quraan akhrisanayo ama inuu dikriga ilaahay ku jiro ama inuu tukanayo saddexda wax ka dhaxaysa malaha marka sheeko iyo anaashido la shida iyo maxaan ku dhahaa waxyaaladee markaa ummadii cibaadadii ka qasayso lagu karaahsan karo waxyaalahaas oo kalena in laga tanaasulo ayaa muhiim ah midda kale waxaa gabdha ayaa masaajidka dhinaca gabdhihi waaye ayaa gabdhaha joogaan soo maha dadkii bay safayaan way kala hagaajinayaan dadka noocaas marka inaadan waxba ka sheegin haddaad wax la sixi kartid la sax haddii kalena wixii lagaa saxay qaado samca wadaacan dheh bes wixii intaa kasoo hadhaa qofkii inaad aflagaadeyso ma anaga iskaga kaa dhigaysaa wax cilmi leh tankii kale wax badana iska jiro inta badanna waa ogtihiin dumara waxaan ka hadlayo waxaan soo doonanaynana waa cibaado iyo alla ka cabsi iyo taqwadeena inaan ziyaadsano waxyaalaha noocaasna in la iska daayo masaajidka dhexdiisa maxaa kaloo ka dhaca biyaa la keenaya ama biyaad wada tagay qashinka inaad meesha uga tagtid qof isagoo xanjo ruugayo imaaday xanjadii inuu darbiga ku dhajiyo maya masaajidka ilaahay inaad nadaafadiisa ilaalisid ayaa waajib kuga ah qashinkaada adiga keentay iyo qashinkii markaa meesha yaalayba inaad qaadido meesha qashinka aad geysid bal maaha ad inaad meesha qashin uga tagtid biyaa la cabay biyihii haaf meesha looga tegaya bacdi biyaha afka laga furay meesha lagu tuuraya qashinkii oo dhan baa masaajidka saas taasoo kale ma fiicna yacni gabdhaha ka shaqeynaya oo kharash ku qaata ama fii sabiilillah u shaqeynaya soo adigana ilaahay dirta waxa u qaban karta u qabo qashinkaaga meesha ku soo ziyaadinin waxaa kaloo jirta marka in kitaabkii quraanka la soo qaato meesha lagu akhristo sax salaadii way dhamaatay soo maaha qaad kitaabka soo qaaday take the responsibility qof responsible noqo at least halkii kitaabaad soo qaaday meeshaad ka soo qaaday ku celi maxaa kale waxaa kaloo jirta dad badan baa samboor qaba dad badan baa maxaan ku dhahay markaaba hindhiso bilaabayaan dhar aad
soo kamkamisay oo cuud aad ku soo shiday ama unsi aad ku soo shiday ama barfuun aad iska soo buuxisay ama wax caraf leh zaad aad soo marsatay lama diidana inaad nadaafadaada ilaaliso in yar oo adiga aad is urinaysid hada kifaaya laakiin gabadh inay zaad isku soo carfso gurigeeda ka baxda taas aba dambi ah inta badan waxyaalaha oo kale aasiyaadka akhlaaqda rasuulka waxa lagu dhigay sallallahu alayhi wasallam ala khuluqan cadiim akhlaaqda waa nisful iimaankaaga kamid tahay waxyaalaha jannada lagu galay kamid tahay soo markaa hadaadan akhlaaqiyadkaaga haduu liito waxa tahay malaha qofku ka akhlaaq wanaagsan yahay ayuu cinda Allahna maktabad sare ka leeyahay bani aadanka hortoodana sharaf uu ku leeyahay soo waxyaalo yar oo intaad iska soo barataad iska sixi karto inaad markaa umadaad ku dhibaatayso naftaada ku dhibaatayso ajrigaad ku weydo waa laga fiican yahay marka adoo kamkamaysid qofka agtaada joogana samboorka ku kaciso hindhiso meeshaas ku tukan kari waayo meeshii ka tago meel kale uu raadsado kalifaadaas dhan markaa dambi ayaad kasbanaysaa intaad ajir kasban lahayd maxaa kaloo jira salaadii dhamaatay waa la baxay banaanka loo sii socdaa markii saas loo sii socdo ama jaranjar baa laga digayaa ama wish baa la raacayaa whatever in say noqotaba qul khayran oo liyasmut ama khayr ku hadal ama iska tasbiixso dadka ha dhibaateen ha qaylin dadka ha riixin dhibaataha u keenin tartiibtaada intuu buuq kala yaraanay tartiib in loo kala baxo marba inay baxdo dadku ay kala yaraha kadaan alxaq lama sabaqa qofkii jaranjarti kaaga soo horeeyay ama wishka kaaga soo horeeyay ha riixin waan ka horgelayaa ha dhihin meesha khilaaf iyo buuq iyo akhlaaq daraha keenin qaylada badan aad moodid in la istagaalayo masaajid ilaahay baa laga soo baxay suxuurtii baa loo sii socdaa soo ha keenin markaa dhibaato ajrigaad soo raasatay wax ka badan oo qaylada halkee baa laga maqlayaa subxaanallah hoos in loo hadlo ay akhlaaqda ku jirtaa okay meel waxa la soo gaaray rag iyo dumarkiiba jid ay wada qaadi karaan indhaha hala laabo hoos la fiiriyo ragina waxaad moodaa in la yiri gabdhihu ay soo yaaceen indhaha si fiican ugu taaga galka inta ka soo saaran subxaanallah waxa ragana ilaaha ka cabsadaan oo hoos fiiriyaan dumarkana saasi islamida ragana leenkooda ha qabsadaan dumarkeena ku soo dhax qasmin dumarkana leenkooda ha qabsadaan oo ragayna ku dhax qasmin waxa jira markaa wiilal gabdhahooda la socday ama waalidkooda la socday meel isku sii balansada oo jaam keenaynin meelahan dhow dadka ciriiri ku ah isku balansanina oo isku dhaxraad raadinina banaanka shisho u baxa meel markaad soo galaysiin banaanka shisha halkaas baan isku sugayna qofkii soo horbaxo halka aan isku sii sugna dhaha oo sii dardaarma meelahan ciriiriga ayaan la isku dhaxraadsanin indhahana hala daboolo oo waxaan la iswada fiirinayo iyo qayladan ilaaha laga xishoodo cibaadada la soo raadsaday soo as much as you can wax kasta iska ilaali markii jidka la socdo oo masaajidka laga sii baxo oo jidka la isku imaado waxaad ajir ku helaysaa baa lagu dhahay wixii jidka yaale dadka dhibaateynay inaad zuulisid dhagax miya mooska galkiisa miya waxyaalo kale miya waxyaalahaas inaad jidka ka leexsid soo waxaad arkaysaa markaa dad masaajidka markaad ka soo baxaan jidkii jaam ka dhigaayo oo waliba ragga u badan jidkiina jaam ka dhigaan dhinac laga maro in la waayo iyo haddana khaaxa badan subxaanallah qof baa xitaa iga dambe madhaas waxaa laga yaabaa dabeeshina qofkaas inay khaakhada ku dhufato ama qofkan socday hortiisa khaakha iyo candhuuf iyo dad waxaad arkaysaa caday wato oo banaankii caday la maraya please waxaa fiican akhlaaqiyaadka waxyaalaha hoose ee asaasiga ah rag iyo dumar bayna iska soo dhisaan dharkii aad ku jiiftay macwis baad ku jiiftay iyo garan hala soo tagin because waa ku soo dhididay dhar yaro macaan ilaahay baad u socotaa masaajidka ilaahay u socotaa ama ma laaba istaagaysaa gurigaaga hadaa joogtid la baasa laakiin masaajidka u soo socotaa rag in yar dhaf isku soo siin karaan caraf yar qamiis yar oo degan dhar kaale arag ma sha Allah dumarkii ma waa dharan carfeen oo zaadahan laakiin wixii guriga aad ku joogtay iska soo bixi waxaad arkaysaa